السلام عليكم أصحابتي إذا سودوا هذا ولا شيء فريدة مركز دونك أكجوكتان وحيد لنا هاي جمعة وناكسن عاو تروى بابها لسيريو يا أفريقيا وحيابها يكفي عنتا وحياتا جانس على هستا ترب لغو ديلو لغو باشالو لكن قربها فوق وحاسك مجران وقفك وقتيس أسكاكوهم بوالود أوجيا هاي حتى ويك إند إسكو كله هوينك قريها يكون مشغول سيهين كشقين تقريها سوء أذيجستا لكن ماشان الحمد لله قرق عاونادا كهسنا إن وقتي إنه إسكبدين هاي قفل بأفريقيا جوجنا ساس معها لكن سيدا إنه كلام تتدك أو بيلكود ملو سعريها الحمد لله alaabtii banda kasoo gaday qaybo kamid waaye alaabahan dukaankan wax badan la iweydiiyay oo la yiraahdo dukaanka intuu ku yaala soo sheeg dukaanka wuxuu ku yaalaa Garden City aniga marka degmadee waaye dhinacee waaye magaalada ma garanaa laakiin Bolt marka wax ka dalbanaysid oo Boltiga ka dalbanaysid ku qor kartaa Garden City ama Banda ama si uun u raadsada dadka reer Kenya aniga hadda imaadma wax weydiinaysiin adiga hore u degnaa jirteen adiga le waxa raadsada adreeska laakiin wuxuu ku yaalaa Garden City qofkii hore u tagay yaqaano waa dukaan aad u weyn oo qalabeysan mashiintaana ka soo gatay wili waxa ku jira isku diyaarinta Ramadaanka يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب اللهم بلغنا رمضان تاجنا هاي إلهي بشام وبركيسن وهذا ديار جروبينو إلهي نجارسي بهاشاس waxa usoo gatay ina fooliyaha iyo waxyaabo la fidinayo ku fidsado because ma jecli always jikada dhinaceeda wax lagu fidinayo ma mara huri way waa ku fidiyaa laakiin waa ayada jeclaha inaan ku fidsado galaaskeyga insha Allah galaaskan kuusha aal dhaha Norway marka ku seenaysid yani marka jawi qaadanaysid oo kale inta galaasyadana la isticmaalaa marka galaaskaas usoo gatay ina marka afuro ka bacdi oo jawi iska qaadanayo wixii ku caawo juuskeyga alaabtii meeshan aad dhaqday waxaan rabaa wax marka cusub yihiin hore ma laga xareysto waa iska bibiraaciya ka bacdina armaajooyinka hadda ka hor idin sheegayay muuqaalka hore u soo galiyay in badan oo dacwaaba iga qaabsata dadka iga qabsadeen meesha soo sheeg iyo maxaa waay numberkeedii meesha magaceed insha Allah muuqaalkan aan kugu soo sheegi doonaa numberka meesha lambarka wiciisiin adreeskana qolada ayaga witness because ani waa liigay ani waa cusubahay ma garanayo marka adreeska meesha ay tahay laakiin qofka numberka inta idin soo saaro ka faa'iideysta cid daneenayso waxa alaabtan hadda armaajadan qolkeyga wada waa armaajo yar oo shopping saaran rabo laakiin tan waa tan TV-ga hoostiisa ii taalo alaabtan waxaan ku dhahay weli ma ku arkin Nairobi alaab sameys oo saan waa smooth korkooda dadka sheeganay way jiraan oo alaabay iga daahiyeen dhahayeen laakiin waxa hadda hayaan xataa waqtiga sugeynay laakiin waa very smooth ku dhahay korkooda waana alaab xoogay tayeysan dhiseen qurux badan ay u sameeyeen dhiseenka dalbatid ay kugu sameeyaan ma hayna idin amaanaya qolada because ana amaano ama xayisiyo wax ma ka faa'iiday laakiin wixii run oo aniga wax ka faa'iiday raba inaan sheego weelashaan raba in qaybtan ku aruursado inta badan jikadu way soo buuxsantay ani iyo weel meesha ku arkaa ku dhaawaa soo aruurina marka jikadu way soo buuxsantay qaanada qaybtan marka waxaas la iska banaan tahay bal alaabta ku aruurso مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب armaajadii waatana saani ku soo baxday intaan adiga qaybahan alaabtan oo ugu cusbayeen iskaga xareystay si xoogaa ay u badbaadaan aysan jikada deeyaala ma la isticmaala way jijabayaan mugtahay marka meeshaan geliyay waxa ay dhibay oo nafta ii keen warqada waaye warqadaha ciyaalka marka ilmo leeyahay warqad wax lagu qoro buug waxaas ma weynaysa dhowti buugi tuushinka aabay buugi iskoolka aabay hadda waxaas dhan waan ka naso doonaa insha Allah qaanadan geeska jirto
ayagaa ku xalinayaa wax dhan ayagaa ku xareynaa hawsheeni markaa soo dhammaysanay maxaa nal ku yaqaanaya jimcaha hadee tahay waa caafimaad qabno alxamdulilah waa caafimaad qabna ilaahay hanoo ziyaad inta haysanina ha siiye waxaa iska xaadirina masaajidkeena maadaama ay tahay jimcihii ugu dambeeyay bisha Shacbaan masaajidka aadnay maantay khudbada waxay ku saabsaneed ramadaanka iyo afurinta dadka danyarta ee faa'iidooyinka ay leeyihiin ilaa ajri xasanaad ha ka siiyo dadka oo walaalaha ah oo masaajidkan ka shaqeeya iyo dhammaan masaajidada ee dadka baraarujinayo alxamdulilah fadli ilaahay xagiisa waaye haddii uu ilaahay subxaana watacaala nabad nagu gaarsiiyo ramadaanta waxaa waajib nagu inaan si fiican uga faa'iideysano aan ku cibaadaysano aan waqtigana ku dhiminin ciyaarta sidoo maanta shiiqa khudbada uu ka sheegayay ducadii oo tusaale wuxuu soo qaatay habaarkii ama duca ma la dhihi karaa adiga oo Jibriil calayhi salaam uu ka duceysanayay inuu qof inta ramadaan gaaro oo ramadaankaasna aan loo dambi dhaafin oo naarta ilaahay ku fogeeyo yacni inuu ku habaaraya dhihi karaa markaasna uu nabiga calayhi salaatu wasalaamna aamiin u dhahay marka ma ogin inaan ramadaanka dambe gaarino aad looga faa'iideysto insha Allah